maxaa ka jira diiwaanka ay la soo kala baxeen argagixisada Hargeysa imise waji ayay maamulka iyo argagixisada Hargeysa u bedeleen dagaalkii qumaca ee Dacwaley kuna soo qaadeen DDS natiijo noocee ah ay argagixisada iyo maamulka Hargeysa ka doonayaan duulaanka ay ku soo qaadeen DDS halis intee leeg ayna argagixisada Hargeysa ku tahay dawladnimada iyo ammaanka DDS dhammaan weydiimahan ayaynu tabintan ku bashaaqi doonaa anigu waa Axmed Awga halkanna waa JTN ee soo dhawaada jaalayaal sidii uu qarxay duulaanka argagixisa ee dhinaca baligubadle ay maamulka Hargeysa ka soo xarig maleegeen kagana fureen DDS aroor walba waxa la arkayaa tabo iyo xeelado nafla caarinimo iyo cadaawad tabarlaawe oo ay maleegayaan argagixisada fadhigoodu yahay Hargeysa saakana waxa loo soo toosay liisto magacyo oo argagixisadu ku soo daadiyeen baraha bulshada kuwaas oo ay ku sheegayaan in ay yihiin shacab u badan haween iyo dhalaan oo lagu xasuuqay Dacwaley garo xilliga ay sheegayaan inuu dhacay xasuuqani waa maalinkii ay ciidanka deegaanka Soomaalidu Dacwaley ka fuliyeen tallaabada sareynta sharciga ee ay ku burburiyeen hilfahana u qaadeen fallaagadii Hargeysa ee gumaaday saraakiishii shacabka Dacwaley ee gudaha DDS waxayna kolkan argagixisada Hargeysa soo dhoobdhoobeen liistooyin magacyo ay ku sheegayaan in ay yihiin shacab birmageyda ah oo u badan haween iyo dhalaan oo lagu xasuuqay Dacwaley balse weydiimo door ah ayaa ku gadaaman liistooyinkan dibna ugu laabanaya isla argagixisada waa haddii ay kolka hore iska hoos eegeen jawaabahoodana u diyaariyeen weydiimaha ka soo noqonayana liistooyinkan ee ku laabanaya argagixisada waxa ku jira dadka shacabka ah ee ku waxyeeloobay Dacwaley hadiiba ay jiraan maxay ayaa loo arki waayay rag iyo ruux toona dhaawac iyo dhimasho midna meel ilaa hadda ay dawladii ka talinaysayba ururinayso xogaha mashaqada ka dhacday welina aan kansho buuxaba loo helin sidee ay argagixisada Hargeysa fadhida ku ogaan kartaa xogo xeel dheer Dacwaley waa gudaha DDS federaal iyo deegaanba dawladdu way isugu tagtay laamaha ammaankuna way ku wada sugan yihiin maxay ayaa ilaa hadda loo arki waayay hal qof oo ku jira dadka lagu xusay liistooyinkan tan ugu dambaysana waa haddii ay argagixisada Hargeysa sheeganayso in ay hubaysanayaashii duulaan ku soo qaaday gumaadayna saraakiisha dawladdu ay maanta noqdeen maata la xasuuqay mise waaba isdifaac oo gumaadka ay u geysteen saraakiishii shacabka Dacwaley ee ay shaacisay xukuumadda deegaanka Soomaalidu oo ay ka jareen tirada saraakiisha oo 30 ahayd ayay soo saareen argagixisadu si kasta ha ahaatee xaqiiqadu waa in diiwaankani ka mid yahay tabaha dagaal ee argagixisadu ku doonayso dhantaalista nabadgelyada deegaanka Soomaalida maadaama ay ka dhex aragteen listadan inay ku kicin karaan caadifada shacabka sida ay xaqiijiyeen booliska deegaanka Soomaalidu argagixisada shabaab ee duulaankan dhinaca Hargeysa kaga soo qaaday deegaanka Soomaalidu kolkii looga adkaaday dagaalkii qumaca ee foolka ahaa waxay kolkan u bedeleen toba kale oo iskugu jira in ay dhuljiifteeyaan calashaan ku milmaan shacabka soona galaan gudaha deegaanka iyagoo huwan magacyo qabiil iyo astaamo shacab sifa ay xarig maleegyadii halisaha ugu talaalaan gudaha deegaanka sidoo kale inay ku firdhiyaan noocyada hubka kuna soo daabulaan gudaha deegaanka inay ka faa'iideystaan caadifadaha wax magaratada kuna guuraan sifa ay u gaadhaan maqsadkooda oo ah khalkhalgelinta ammaanka iyo duminta dawladnimada deegaanka Soomaalida waana sababta ay argagixisada Hargeysa kolba waji ugu soo galayaan uguna hurinayaan dagaalka Dacwaley argagixisada shabaab oo kolkan si toos ah uga soo howlgalaya dhinaca Hargeysa waxa laga maarmaan ah in ay shacab iyo dawlad bareer DDS ula tagaan gacan bir ah iskagana xidhaan geed sal adag oo ay halkaasi ku basbaaseeyaan sidoo kale inay ka feejignaadaan magac walba oo ahaan kara magac qabiil magac dhaqan magac diin iyo magac shacab ama maato oo ay ku soo gaban karaan iskuna ekaysiin karaan argagixisada meehanaabaysa